السلام عليكم. فرنسا أما فرنسيس جمهورية ونن قبل كودعينين جمهورية إلا أيها هدير قميستا جزيرة بدن أو كتر سنقارة أفريقيا. فرنسا بلد كحرية بلد كإنسانية يشيغش بوكا فرنسيس كأحواشي سكومايكا كلي إنتان كأوغناهي وحاجر وحيابك كلي وأحوال كلي وأنا كأوغينين دالك فرنسيسكا وحاجر وجي قرصون وإفرنسيس كليهين sidoo kale waxaa jira wajiga xushnimo ah oo bini'aadanimada ka baxsan oo ay Faransiisku leeyihiin takoor iyo cunsuriyad kufaanida xadgudubka iyo dulmiga oo is qarsoodi ugu faanayaan Faransiiska muuqaalkan wuxuu ku soo bandhigi doonaa macluumaad ku saabsan Faransiiska sidoo kale muuqaalkan wuxuu ku soo bandhigi doonaa wajiga xushnimada ah oo ay leeyihiin una qarsan Faransiiska calanka dalkaaga oo aad sar ugu qaadid gudaha dalkaaga ayaa wuxuu kugu sababayaa in lagu dilo oo lagu toogto waa insaaniyada beenta ah oo ay ku qaylinayaan Faransiiska magacaygu waa Umar Maxamed halkanina waa kanaalka Garwaaqsi daabade haddii aad isleedahay kanaalkan Garwaaqsi wax un bad ka faa'iidi xitaa hal kelmad bad ka faa'iidi ku soo biir kanaalka subscribe saar siina faafi kanaalka insha Allah kanaalkan Garwaaqsi waxaan rajaynaynaa inuu noqdo mid kaalin weyn ka geysta sare kicinta wacyiga ummadda Soomaaliya meel waliba caalamka ka joogan sidoo kale daabade waxaan xooga saareynaa gudbinta mawaadiic dadka anfacayo waxna ku soo kordhinayo wacyigoodana sare u qaadayo biidinillah ku soo dhawaada muuqaal aan uga hadlayno wajiga madow ee Faransiiska daabado ka hor inta aanan u gudi gelin bandhigida wajiga xushnimada ee Faransiiska xoogaa yar aanu yara qeexno Faransiiska waayo xaguusa dhacayo su'aalo la mid ah Faransa waa jamhuuriyad dastuuri ah oo dhacda galbeedka Yurub oo ka kooban dhul ahaan bad iyo beri Faransa dadka ku nool waxa lagu qiyaasaa 66 milyan oo dad ah Faransa caasimadeedu waa Paris caasimada Paris kaliya waxa ku nool 2 milyan iyo 200 kun oo dad ah luqadda rasmiga ah ee Faransiiska waa luqadooda gaarka ah luqadda Faransiiska lacagta laga isticmaalo dalka Faransiiska waa lacagta euro-ga calanka Faransiiska wuxuu ka kooban yahay 3 midab oo toosan oo isugu xiga buluug cadaan iyo casaan oo hadeertan horteena ka muuqata Faransiiska waxa lagu tiriyaa mid ka mid ah gobolada muhiimka ah ee dhaca galbeedka Yurub kadib boqortooyadii Ingiriiska Faransiisku waa boqortooyadii labaad ee ugu weyn xagga gumaysiga adduunka Faransiisku waa mid ka mid ah dalalkii aasaasay kana shaqeeyay aasaasidda midowga Yurub Faransa waa wadanka ugu weyn galbeedka Yurub iyo midowga Yurubba marka loo fiiriyo xagga bedka sidoo kale waa dalka saddexaad ee ugu weyn guud ahaan kadib Ruushka iyo Ukraine Faransa waxay leedahay jasiirado aad u badan waana jamhuuriyad unan gobolka u dhacaynin Faransa waxa ku caabiyay maamulida iyo ilaalinta dhulkan iyo jasiiradahan aadka u balaaran waa ciidankeeda waxay haysataa ciidan ka awood badan xitaa ciidamada Ingiriiska iyo Jarmalka intaas waa xoogaa yar macluumaad aan ka diyaariyay dalka Faransiiska aan ku bilowno sheegashada beenta ah oo ay Faransiisku sheegtaan oo ay dhahaan Faransa waa balad xorriyad ay ka jirto sheegasha book ah xogaar aan daabana muuqaalkan voilà pour mes oreilles en fait j'étais très agressée mais qu'est-ce que vous faites là la France est pour les catholiques c'est pas pour les musulmans gabadhan waa gabar muslimad ah oo xijaaban sida muuqaalka uga jeedno gabadhan waxay tiri maalin ayaa waxaan u soo qasday oo aan soo aaday caasimadda waxaan ballan lahaa dhaqtar kadib waxa la igu soo xadgudbay si daran bishakal caniif ay sheegaysaa gabadhu waxay tiri mid ka mid ah dadkii meesha maray ayaa wuxuu ugu yiri maxad xagan ka sameynaysaa Faransa waa dawlad ay leeyihiin Kaathooliga kaliya waxa iska leh dadka diinta Kaathooliga haysta ee ma ahan dawlad ay muslimiintu leeyihiin cajiib thumma cajiib Faransa waxa tiri xaganada waxa ka jira xorriyad okay haddii ay xorriyad jirto maxaad iga rabtaa haddii aan xijaabka xirto iyo haddii aan isqaabiyaba adiga xorriyad ayaad sheegtay soo ma ahan mise xorriyadu waxay jirtaa kaliya markaad nabiga ku xadgudbaysid kadibna aad la soo qaylinaysid xorriyatu tacbiir متحف اللوفر ومتحف كميد متاحفta ku yaala caasimada Faransiiska ee Paris متحفkan waxa lagu soo bandhigaa farshaxan qadiimi ah متحفkan waxa yaala 55 ku farshaxan qadiimi ah oo laga soo xaday dawladda Masar waxaana laga soo xaday xilligii xamladii Faransiyiinta oo lalihii Faransiyiinta ay ku qaadeen dawladda Masar ee uu horwaday Napoleonka Faransiiska Napoleon wuxuu sameeyay wax bini'aadanimada xitaa ka baxsan markii aqoon-yahanada iyo ardada jaamacadda Azhar ee Masar ay diideen kana hor imaadeen
ololihii Faransiyiinta sidoo kale gebi ahaanba ay diideen gumaysiga Faransiiska ee Masar. Napoleon wuxuu madaafiic ku dhuftay kuna soo tuuray xaafadda Azhar ee Masar waxaana madaafiicdaasi ku shahiiday in ka badan 2,000 aqoonyahan iyo arday Azhari oo Masaari ah. xasuuqaas kadib Napoleon jaamacadda Azhar wuxuu ku soo galay fardo jaamacaddan wuxuu ka dhigay meel fardaha lagu dajiyo. دخل الفرنسيون الأزهر بخيولهم وبالوا فيه وتغوطوا وشربوا الشراب في صحنه وأيضا ربطوا الخيول في قبلته. فرنسو آوي إنسانية أشيغيسي آوي حقوق الإنسان كي أتشيغيسي شيغا شبوك أيان به كرنا sidoo kale Faransa waxa ku yaala mataxaf lagu magacaabo mataxaful insaan mataxafka insaaniyada oo isagana ka fog insaaniyad iyo wax la mid ahba. mataxafkan waxa yaala jumjumada ama madaxa kacdooyahanadii Jazaa'iriyiinta ee Faransiisku dilay. isla mataxafkan waxa yaala jumjumadii Suleymaan al-Halabi waa arday Suuriyaan Azhari ah ardaygaas oo dilay Kalibar horwadihii xamladii Faransiyiinta ee ku xigay Napoleon xamladaas oo lagu qaaday Masar. Kalibar wuxuu madaafiic ku dhuftay xaafad ay dadku deganaayeen madaafiicdaas wuxuu ku dilay in ka badan 3,000 oo muwaadin Masaari ah. kadib Suleymaan al-Halabi wuxuu ahaa qof dhiig leh dareen iyo damiirna leh fadhiga ayuu ka kacay wuxuuna u dhameeyay noloshii Kalibar kaasoo dilay in ka badan 3,000 muwaadin Masaari ah. Suleymaan al-Halabi waa la soo qabtay waana la daldalay kadib waxay ka gooyeen jumjumada wayna soo qaateen waxayna ku soo bandhigeen mataxafkan mataxaful insaanka beenta ay ku soo bandhigeen. laakiin arinka foosha xun aadkan u qaraar ayaa ah jumjumadiisa hoosteed ayaa waxay ku qoreen mujrim dambiile. sidoo kale isla xilligan hadda aan joogno in ka badan 18,000 jumjumo ayaa waxaa lagu soo bandhigaa mataaxifta Faransa. arinkaasna wuxuu ka dhigan yahay in Faransiiska ay dadka dhulkooda ku soo guumeysteen kadibna madaxa ka soo gooyeen madaxyadoodana soo qaateen kuna soo bandhigeen mataaxiftooda. xadgudub sidan loogu faanay weligay ma arag mana maqal Faransiiska ka hor. kadib ayaa Faransiiska wuxuu la soo qaylinayaa insaaniyad iyo xuquuqul insaan sheegasha buug ah iyo qaylo iska been ah. Faransa caasimadeedu waa Paris magaalo ay ku nool yihiin in ka badan 2,200,000 oo dad ah. dadka Paris ku nool 37% waa min usul غير faransiya dad aan asal ahaanba Faransiis ahayn. dadkaasi asalkooda waa dawladaha ay Faransiiska kheyraadkooda soo biliqsatay iyo kuwa ay hadeer ka biliqsanayaan. Ponendoci al caos migrazione nel quale ci troviamo. Non ci venire a fare lezioni Macron, perché l'Africa scappa da voi e la soluzione non è spostare gli africani in Europa, è liberare l'Africa da certi europei. C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles. فرنسا waa jamhuuriyad unan gobolka u dhacaynin maxaa yeelay gobolkeeda muxuunan u dhacaynin ma garanaysaa. isla hadeertan aan joogno Faransa wuxuu gumeystaa oo uu kor ka xukuntaa jasiirado badan oo ka tirsan Afrika iyagoo jasiiradahaas ay ku qasban yihiin in la gumeysto. لكن ما زال هناك جزيرة واحدة تحت استعمار فرنسي لكن هذا ظلم. فرنسا الآن هي يدير إدارة هذه الجزيرة وهذا عدوان. daabade haddii aad muuqaalkan si wacan u soo daabatay waad fahmi kartaa halka ay mushkiladu ka taagan tahay. mushkiladu waxay ka taagan tahay in Faransiiska ay ku faanayaan jaraa'imka iyo dulmiga ay geysteen. sidoo kale mushkiladu waxay ka jirtaa in Faransiiska ay sii boonbooninayaan dadkii jaraa'imtaasi geystay. arrinka qaraar ayaa ah in ilaa iyo hadeertan uu dulmigaasi socdo oo aynan Faransiiska meel uga leexan wadadii ay awooyaashooda u soo jeexeen halka aan inagana ka leexanay wadadii ay awooyaashana noo soo fureen. tusaale ahaan haddaanu soo qaadano ceelboorka Paris waxaa lagu magacaabaa Charles de Gaulle waa madaxweyne hore Faransiis oo mujrim ah gacan ku dhiiglana ah. zamankii uu isaga xukumayay Faransiiska sanadkii 1945 waxaa kacdoon iyo mudaaharaad ka bilowday dalka Algeria Jazaa'ir. mudaaharaadkaas oo sabab u ahaa dil loo geystay wiil dhalinyaro muwaadin Jazaa'ir ah oo calanka dalkiisa Algeria kor u qaaday kadibna la dilay. daabade arrinkaasi wuxuu ka dhigan yahay calanka dalkaaga oo aad sar u qaadid gudaha dalkaaga waa jariima ama dambi marka loo fiiriyo xagga iyo aragtida Faransiiska kadibna sababaysa in lagu toogto. almuhim mudaaharaadkaas ay Jazaa'iriyiintu sameeyeen dartiis iyagoo ka gubanaya dhibaatadan loo geystay Charles de Gaulle wuxuu dilay 44,000 muwaadin Jazaa'iri ah. shakhsiyaadka jaraa'imtan foosha xun geystay ayaa Faransiisku waxay magacyadooda ku dhajinayaan wadooyinka ceelboorada iyo meelaha ugu caansan dalkooda. xaqiiqada ayaa ah
إن فرنسيسك إنسانية حقوق بين آدم مثل وحسن كأوجين حقيقة ضوائنيين مجرمين قعن كل يا الله موقال كان وحا إذن سو دياري دذالي جهد أذك لإذن سو قليي أنيقو عمر محمد وحان إذن سو مرسي كانالك قرواقسي سو دبادا صاحي بيال كنا سو دبادا كانالك قرواقسي كانالك وكانالكي نسو دبادا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته